السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا عبد الله يونس حسن. إن application كان إذن هاي مانتا وكان multiple accounts هاليرها مركا application واحد كهلا كرتان بلاي ستورك. أنا واحد كسر دكسة بلاي ستورك وأكو خوريس أو كليه multiple accounts. وكان أسا أو صباحا multiple accounts أو كل فنيسا مركا وكان multiple accounts أنا واسود دكسي مركا application كان waxaan ku isticmaalaya marka hadda waxa uu jiro halkan WhatsApp oo messenger ah halkan waxa uu jiro WhatsApp business labo WhatsApp ayaan ku isticmaalaya marka WhatsApp messenger kan ama WhatsApp business kan soo qaado midkan oo business ka waxaan u isticmaalayaa 4 xabo ama 5 xabo oo WhatsApp ah inaan mobilkeyga ka isticmaalo kaasina waxa ii fududeynaya marka application kan oo multiple accounts ka ah ii fududeynayo marka idin tuso sidaan u isticmaali lahaa. Okay, application waa soo furay hadda waxa soo geliyay macnaha WhatsApp business oo 2 xabo ah marka aan rabo inaan soo geliyo waxaan taabanayaa calaamadan pluska aan ku dhufanayaa plus marka aan dhaho applicationada dhan oo ii soo saara mobilkeyga ku jiro midka doontad ay soo saari kartaa. Hadda halkaas waxaan u jiro WhatsApp business ka ayaa ku jiro marka hadda WhatsApp messenger ka ayaa soo gelinayna markii ama xog baroobanina messenger ka aan ku dhufanayaa marka. Okay, waa kan oo soo galay mid kala dalbeena hadana isla messengerkii ku dhufo messenger mid kale soo galayo adi inta shay ama inta ciwaan aad rabto inaad kacsato aad soo gashan kartaa 5 ciwaan hadii aad rabto inaad kacsato waxa soo gelinaysaa 5 oo ah messenger WhatsApp kan sidoo kale marka WhatsApp business ka hadda waan ku dhufanayaa marka WhatsApp business ka asiga macnaha tusaale ahaan idin kaga siinaya okay waa kan oo soo kaco WhatsApp business ka agree and continue marka ku dhufto lambarkii ayaa gelinaa marka lambarka marka geliyo kadib toos oo macnaha u soo kacaya okay hadda wuxuu iga baahan yahay inaan code geliyo code marka geliyo kadib macnaha WhatsApp ka toos ayuu u soo kacaya waxaana kicisay hal WhatsApp okay waxa ku soo heeray marka WhatsApp kaleete oo WhatsApp business ka asigana sidoo kaleete marka qaar barnaamijkan ayuu soo saaraa barnaamijkan waa macnaha lacag inaad ku dhiibto applicationada inta badan oo waxyaal macnaha applicationada badan hadii aad rabtid inaad isticmaashid lacag dhiibeysa waxaana midaas sameeyay application kan shirkadda iska leh hadda waxa ku qormaysan $5 $6 iska dheh bishii macnaha $6 dhiibay bishii $6 kadib waa isticmaalaysaa marka anay Soomaaliyan ahay waxaas aniga ma naqaano marka adi 2 ilaa 3 intaas u isticmaal kartaa marka hal mar tijaabi kulay adiga arki doono ina arinta macnaha inay xaqiiq tahay in kaleete marka aad rabto inaad dileedo application ina meesha ka dileedo waxa sameynaysaa application ka naftirkiisa aad riixaysaa sida messenger kan oo kale hadda marka riixo waxa ii soo baxay bahaladan ama toolkan waxa ka doornaa marka delete waxa rabaa inaad dileedo macnaha delete aan ka doornaa kadib delete si ah toos ayuu baxaya midka doontane waa soo gashan kartaa wixii kale soo kordho waa idin soo gudbin doonaa insha Allah.